nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa ina baray sida looga hortago waxaas oo dhan dagaalkii Badr markuu rasuulku galayay alayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyay ciidankii wuxuu diyaariyay hubkii wuxuu diyaariyay raggii wuxuu joojiyay meedaankii wuxuu kaloo diyaariyay habkii iyo khudadii planigii wixii oo dhan intuu dhigay ayuu cariishkiisii koray meeshuu ciidanka ka maamulayay habeenkii oo dhan markaa Ilaahay bariyay ilaa uu baritaankii uu Ilaahay bariyay ay keentay inuu go'ii saarnaa ka dhaco oo uu daba joogo Abu Bakar gadaal ka joogo uu soo qabanayo ya rasuulallah Ilaahay aad baad ula hadashay ilaa uu gaaray bay inuu Ilaahu caawa hadii la halaago kooxdan yar dhulka lagu ma caabudayo buu Ilaahay ka yiri tabaaraka wa tacaala marka halkaas waxaan uga jeedaa laba arrimood koow duco aan amal la socon lama aqbalayo macna ma sheegay sababta waadigo caawa dhaha Ilaahu waxaan rabaa inaan wiil dhalo ama gabadh dhalo حاسنا سميس إله ويل بانطوني إله قرب بانطوني إله حكم أبو تمكرا عيسى بو أبوري بلا أبو هذا النبي بلا أبي بلا هو أبوري لكن سنيه سكوب جرت مرقا دعاء بلا عمل أنا أقول شيء ماشي كان عضو حرام كان عضو قط سنة تقول لك تكنا إله برنا اللهم أهدم إسرائيل ما يدمتي اللهم دمر الكفار ما يدمين دعاء سديسي أويان بقول أنا هنا waxa la sameeyay jirto xaramkii waan joognaa waa ooyeenaa laakiin waxa istaraatiijiyad malin marka Ilaahay ma aqbalo duca bil amal midida hadda afkay adkii way tiraad wanka waan ku gowracayaa biidin Ilaahay waa kirkiroon laakiin markaad afaysid mididii oo dul qabato bismillah tiraad way ku go'aysaa marka qadiyadaas waa saas weeyaan marka ducada ku dar shaqo waa laga aqbal istaraatiijiyad bay dhigeen istaraatiijiyad dhig خطة دقيقة خطة دق بلانك بدقيقة بلانك دق شقة قبتين شقة قبو هبا يرات شقة واعدوا لهم ما استطعتم إلى معوري من قوة بعد كريسين دياريا أنا قلت لك اللي قدايم قطع سوا تاسع أمنين